asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada dalab limidi waxaan idinla wadaagi doonaa xiisadaha colaadeedii ka taagan awdal iyo salal xaaladaha cusub ee magaalada buurame waxa kale oo aad maqli doontaan haddii rabbi raalli uu ka noqdo suxuufi cishqi iyo siyaasi siciid daahir oo lagu xiray magaalada buurame waxaa kale oo aan idinla wadaagi doonaa xaaladaha guud ee awdal iyo salal soo dhowaada haddii aad inagu cusub tahay janalka sabscribe inoo saar muuqaalka inoo laagiray asxaabtaada la wadaag aragtidaada inoogu soo gudbay qaybta faallada mahadsanidin. mar kale waxaan idin leenahay maalin wanaagsan. waa 5 bisha 3 sanada 2026. warbixintan gaarka ah waxaan ku eegi doonaa xaalada amni iyo xiisadaha colaadeed ee ka taagan gobolada awdal iyo salal, gaar ahaan deegaanada heemaal, tuqushi, bildaaley, ceel la helay iyo lukaye, halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo ay wadaan maleeshiyaad ka kala tirsan beelaha deegaanka. sidoo kale warbixintan waxaan diradda ku saari doonaa dhacdo cusub oo si weyn usoo jiidatay dareenka shacabka, taas oo la xiriirta xiritaanka suxuufi cishqi iyo siyaasi siciid daahir, kuwaas oo la sheegay in loo dhaadhiciyey xabsiga hoose ee magaalada buurame iyadoo ay wadaan ku dhowaad 20 asgari. gobolada awdal iyo salal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wajahayay xaalada amni oo kacsan, inkasta oo deegaanadan horay loogu yaqiinay deegaano degan oo ganacsi iyo nolol caadi ah ay ka socoto. haddaba bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay xiisado beeleed iyo dhaqdhaqaaqyo hubaysan. xiisadahani waxay inta badan ka taagan yihiin deegaanada xuduudaha u dhow sida heemaal, tuqushi, ceel la helay iyo deegaano kale oo u dhexeeya gobolada awdal iyo salal. dadka deegaanka ayaa sheegaya in habeenadii u dambeeyey ay arkayeen dhaqdhaqaaqyo maleeshiyaad oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hubka fudud iyo kan culus intaba. wararka ka imaanaya deegaanka heemaal ayaa sheegaya in halkaasi ay ku sugan yihiin maleeshiyaad tiro badan oo hubaysan. dhaqdhaqaaqyadaas ayaa la sheegay in ay ku lug leeyihiin maleeshiyaad ka kala tirsan beelaha deegaanka, gaar ahaan kuwa kasoo kala jeeda beelaha ciise iyo gadabuursi. goobjoogayaal ku sugan deegaanadaas ayaa sheegay in mararka qaar la maqlo rasaas goosgoos ah, inkasta oo aysan weli la xaqiijin dagaal ballaaran oo si rasmi ah u qarxay. xoolo-dhaqatada iyo dad reer guuraa ah oo ku nool agagaarka deegaanadaas ayaa bilaabay inay ka guuraan goobaha xiisaduhu ka jiraan, iyagoo ka cabsi qaba in colaaddu si deg ah ay u qarxi karto. xiisadahan waxay si toosa u saameeyeen dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada u dhow halka ay xiisaduhu ka jiraan. dad badan ayaa bilaabay barakac iyagoo u guuraya magaalooyinka ka fog goobaha colaadda. qaar ka mid a qoysaska ayaa gaaray magaalooyinka waaweyn sida hargeysa iyo buurame si ay uga fogaadaan khatarta dagaalka. ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka ayaa sidoo kale hoos u dhacay, gaar ahaan wadooyinka isku xira buurama iyo lughaye iyo deegaanada kale ee xeebaha u dhow. odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ayaa isku dayayey in ay qaboojiyaan xiisadda. kulamo kala duwan ayaa lagu qabtay deegaanada gobolada awdal iyo salal, kuwaas oo looga hadlayay sidii loo joojin lahaa isku dhacyada imaan kara. odayaasha ayaa ugu baaqay maleeshiyaadka hubaysan inay ka baxaan goobaha ay isku horfadhiyaan, islamarkaana ay u oggolaadaan in arrintan lagu xalliyo wadahadal. si kastaba haatee, inkasta oo dadaallo badan la sameeyey, haddana xiisaddu weli ma demin. dhinaca kale, wararka ka imaanaya magaalada buurame ayaa sheegaya dhacdo cusub oo saameyn ku yeelatay jawiga siyaasadeed ee gobolada awdal iyo salal. waxaa la sheegay in suxuufi cishqi iyo sidoo kale siyaasi siciid daahir ay xabsiga dhigeen ciidamo gaaraya ku dhowaad 20 asgari. labadan qof ayaa la sheegay in marka hore lagu hayay meel kale oo ka baxsan xabsiga hoose, balse 2 saacadood kadib loo dhaadhiciyey xabsiga hoose ee magaalada buurame, halkaas oo ay hadda ku xiran yihiin. wararka qaar ayaa sheegay in xiritaankooda uu la xidhiiri karo hadallo ama qoraal ay ku baahiyeen baraha bulshada oo ku saabsan xaaladda gobolka. si kastaba haatee, weli ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay maamulka oo si cad u sharaxaya sababaha loo xiray. xiritaanka suxufiga iyo siyaasiga ayaa si weyn looga hadal hayaa gudaha gobolkaasi. qaar ka mid a shacabka ayaa muujiyey walaac ku saabsan xurriyadda hadalka iyo doorka warbaahinta. dad kale ayaa ku dooday in xaaladda amni ee kacsan awgeed ay muhiim tahay in laga fogaado hadalla kicin kara xiisadda.
arrintan ayaa noqotay mid si weyn loogu falanqeeyo baraha bulshada. guud ahaan xaaladda amni ee gobollada Awdal iyo Salel ayaa lagu tilmaamay mid kacsan, laakiin weli aan si buuxda u qarxin dagaal ballaaran. ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay kordhiyeen joogitaankooda meelaha qaar, gaar ahaan waddooyinka muhiimka ah iyo magaalooyinka waaweyn. sidoo kale waxaa socda dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ishaya. falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in haddii aan si degdeg ah loo qaboojin xiisadda ay suurtagal tahay inay isu beddesho isku dhacyo hubaysan. si kastaba haatee, waxay sidoo kale tilmaameen in odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi ay door weyn ka ciyaari karaan nabadeynta. gabagabadiina, xiisadaha ka taagan gobollada Awdal iyo Salel waxay weli yihiin kuwo u baahan xal degdeg ah oo nabadeed. dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka, barakaca dadka rayidka ah iyo dhacdooyinka siyaasadeed ee ka socda Buurame ayaa dhammaantood muujinaya xaalad u baahan feejignaan iyo dadaal wadajir ah. shacabka deegaanka ayaa rajeynaya in dadaalada nabadeed ay miro dhali doonaan si looga fogaado dagaal sababi kara khasaare naf iyo maalba leh. dhinaca kale, warar kale oo inaga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in qodobadii ay isla afgarteen salaadiinta gobollada galbeedka iyo madaxweynaha Somalilan aysan jirin wax is-afgarad ah oo weli ka soo baxay. kadib kulankii dhowaan ka qabsoomay madaxtooyada ee u dhexeeyey salaadiinta dhaqanka gobollada galbeedka iyo sidoo kale madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ee ka dhacay magaalada Hargeysa, waxaa soo baxay warar muujinaya in qodobadii la isla gartay ay wax iska beddeleen ama si kale loo fasiray. waxaa magaalada Hargeysa lagu yeeray 5 caaqil oo lagu sheegay inay ka soo jeedaan beelaha Maxamed Case. si kastaba haatee, waxaa dood laga keenay heerka matalaad ee ay ku leeyihiin bulshadooda, iyadoo la sheegayo in aanay haysan taageero iyo wakiilnimo buuxda oo ay ku matelaan guud ahaan bulshada reer Awdal. wararka ayaa tilmaamaya in caaqiladan ay si dhow ula shaqaynayaan siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda maamulka Somalilan, kuwaas oo la rumaysan yahay inay door ku lahaayeen abaabulka kulanka iyo qodobada la hordhigay. 5 caaqil ee gaartay magaalada Hargeysa islamarkaana halkaasi kulanka kula yeelatay ayaa la rumaysan yahay in 2 qodob laga saxiixay. qodobka koowaad ayaa lagu sheegay in la saxiixay nabad guud oo aan dagaal dambe ka dhalan karin wax kasta oo dhaca mustaqbalka. qodobkan ayaa lagu tilmaamay mid ballaaran oo aan si cad u qeexayn xaaladaha suurtagalka ah, taasoo dhalisay shaki iyo walaac. qodobka labaad ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada madaniga ah ee Gadabuursi laga soo wada raro furimaha ay joogaan si bilaa shuruud ah. qodobkan ayaa loo arkay mid si gaara u taabanaya awoodda iyo amniga deegaanka, islamarkaana aan la raacin heshiis ama damaanad kale oo cad. arrintan ayaa noqotay mid si weyn looga falceliyo guud ahaan bulshada Gadabuursi, iyadoo dad badan ay u arkeen in qodobadan aanay dan u ahayn beesha Gadabuursi, islamarkaana lagu saxiixay si aan wadatashi buuxa loo samayn. waxaa la sheegay in caaqiladii saxiixay qodobadan ay ku dhiiradeen go'aan ka turjumaya aragtida guud ee bulshadooda, taasoo dhalisay hadalhayn iyo qaadan waayo ballaaran. dhinaca kale, maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay tallaabooyin ay xukuumaddu ka qaadayso gobolka Salel, gaar ahaan degmada Saylac iyo deegaanada ku xeeran. tallaabooyinkan waxaa ka mid ah xilka qaadis iyo magacaabis oo la sheegay inay saameeyeen saamiga beelaha, iyadoo xilal laga qaaday xubno ka soo jeeda beesha Gadabuursi laguna beddelay xubno kale oo ka soo jeeda beesha Ciise. arrimahan isbiirsaday ayaa sii xoojiyey dareenka iyo walaaca bulshada, iyagoo u arka in isbedelada siyaasadeed iyo kuwa amni ay si gaara u taabanayaan gobolka. guud ahaan saaxiibayaal, warbixinteena inta ayaan kusoo koobaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janaalka subscribe inoo saarto, muuqaalkii noo laagirayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbiso qaybta faallada. mahadsanidin.